marnabaha ka quusan wax aad si dhab ah u rabto way adag tahay in la sugo, laakiin waxaa ka sii daran oo ka sii adag inaad ka shalaydo. goortii aad aqbasho qof, waxaad aqbashay wixii ay horay u soo mareen oo dhan, sidaa darteed dib ha u soo gocan hana u adeegsan. goortii aad qof necbaysato ama aad nacdo, wax kasta oo ay sameeyaan waxay noqonayaan kuwa kaa xanaajiya, haddaba ha gelin niyadaada wax nacayba. argoosiga ugu wanaagsan waa inaad horay u socoto, cafiso oo iska ilowdo, kuna dadaasho inaad guulaysato. marnaba ha siin qof qanaacada ah inay ku daawadaan adigoo dhibaatoonaya. 80% dadku way iska aamusaan xitaa kolkii ama markii ay rabaan inay wax yiraahdaan si ay uga fogaadaan muran qof ay danaynayaan. marnaba si aad ah ha ugu xirnaan qof haddii aysan iyagu sidaa oo kale dareemayn, sababtoo ah jacayl hal dhinaca maskax ahaan ayuu ku baabi'in karaa. dadka qaarkii ma rabaan inay runta maqlaan, sababtoo ah ma doonayaan in dhalanteedkooda la burburiyo. marnaba been ma noqoto run, qaladna ma noqdo sax, xumaanna ma noqoto wanaag, xitaa haddii ay aqbalaan ama rumaystaan dadka oo idil. yaysan ku gelin kalsooni saa'id ah ama yeedadiilo badan. goortii qof kugu yidhaahdo waan ku jeclahay, su'aasha saxda ah waxaa weeye ilaa iyo goorma, sababtoo ah sida xilliyada sanadka isu badbedelaan ayay dadkuna isku beddelaan. goortii iyo xilligii xumaan lagu sameeyo dadka daciifka ah way argoostaan, dadka xoogganna way cafiyaan, dadka caqliga badanna way hilmaamaan. qofna ma oga halganka aad ku jirto, qofna ma oga murugadaada, qofna ma oga xanuunkaada, laakiin waxay dhammaan ogaadaan oo sii wadwadaan haddaad samayso hal qalad. dadka qalbiga fiican wax badan bay dadka caawiyaan, wax badan bay bixiyaan, si dhab ahay wax u jeclaadaan, haddana waxaa soo gaara waxyeelada iyo dhibaatooyinka iyo mushkilaadka ugu badan. waxayna awoodaan inay ku qariyaan kun dareen oo murugo ah hal dhoolla caddayn oo farxad iyo furfurnaansho ah. mararka qaar dad masaafooyin aad u dheer kaa fog ama kumanaan mayl ayaa ku siin kara farxad aadan ka heli karin kuwa dhinacaaga jooga oo aad kuugu dhow. ha u noqon lalahaade ama addoon shaqadaada, ha ku lumin waqtigaaga iyo fursadaada wax aan dan kuugu jirin, ha ku dayicin daryeelka naftaada madadaalo micno la'aan ah, ha u baabi'in naftaada shaqsi ama shaqo aan horumar ku gaarsiinayn. kama dhigi kartid kumana qasbi kartid qof inuu ku jeclaado. waxa aad samayn karto waa inaad noqoto qof la jeclaado, wixii soo harayna iyaga ayay u taallaa ee u daa. calaamadaha qaangaarnimada dhabta ah waa markii qofku dhibaateeyo kadibna aad isku daydo in aad